Xeerarka Awooda Buuga. The 48 Laws of Power waa hal-abuur aan waqti lahayn oo u noqday akhris lama huraan u ah qof kasta oo danaynaya mabaadi'da iyo qalafsanaanta awoodda. Buuga waxaa qoray Robert Greene oo ah qoraa caan ah oo isu taagay in uu awood u yeesho mawduucyada ay ka midka yihiin xeeladda, awoodda iyo hab-dhaqanka aadanaha. Waxaa idiin soo tabinaya waa anigoo ah Axmedeef Xasan, halkanina waa YouTube ka deefsame. Waxaa ka mid ah xeeladaha lagu kasbado laguna ilaaliyo awoodda, sida loola macaamilo cadowga iyo kuwa ka soo horjeeda, iyo sida loo isticmaalo isgaadhsiin waxtar leh si aad dadka kale uga dhaadhiciso aragtidaada. Intaa waxaa dheer, buuggu wuxuu sidoo kale daboolayaa mawduucyo ay ka mid yihiin muhiimadda waqtiga, fahamka cilmi nafsiga ee dadka kale, iyo sida loo kobciyo calaamad shakhsiyeed oo xooggan. Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee The 48 Laws of Power waa awoodda ay u leeyahay inuu siiyo akhristayaasha fikrado la taaban karo oo ku saabsan adduunka dhaqdhaqaaqa awoodda. Bixinta tusaalooyin taariikhi ah, Greene waxa uu awood u leeyahay in uu muujiyo fikrado ka qaabla isku xidhiidhi karo oo si fudud loo fahmi karo. Tani waxay ka dhigaysaa buuga kheyraad qiimo leh oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya inuu horumariyo xirfaddiisa ama noloshiisa gaarka ah. Intaa waxaa dheer, buuggu wuxuu bixiyaa aragti gaar ah oo ku saabsan dabeecadda aadanaha iyo mabaadi'da awoodda. Marka la fahmo sida ay dadku u fikiraan, u dhaqmaan iyo go'aannada u gaadhaan, akhristayaasha waxay awoodaan inay horumariyaan faham qoto dheer oo ku saabsan dabeecadahooda iyo dhiirigelintooda. Wacyigelintan ayaa markaa loo isticmaali karaa in lagu kasbado tartanka adduunka ee ganacsiga iyo xiriirka dadka dhexdooda. Gabagabadii, The 48 Laws of Power waa kheyraad qiimo leh oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya inuu si qoto dheer u fahmo dhaqdhaqaaqa awoodda iyo dabeecadda aadanaha. Aragtidiisa waxqabad, tusaalayaal taariikheed iyo aragti gaar ah oo xagga awoodda ah, buuggani waxa uu noqday mid caadi ah oo ku saabsan horumarka shakhsi ahaaneed iyo horumarinta naftiisa. Haddii aad raadinayso inaad hagaajiso xirfaddaada ama noloshaada shakhsi ahaaneed, The 48 Laws of Power wuxuu ku siinayaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan mabaadi'da awoodda oo kaa caawin kara inaad gaarto yoolalkaaga oo aad ku noolaato nolol guul leh. Heerka koowaad, ha ka muuqdeeraan mas-uulkaga. Never outshine your master. Si aad u hanato awood ama aad u ilaashato maamuus aad lahayd, marna ha ka hoos bixin hadka qofka ku xukuma. Dadaalkaga, kartidaada iyo shaqo wanaagagu macno samayn maayaan haddii uu ku sanifo mas-uulkaga, noqo dantii garad madaxa foorasha. Heerka labaad, aaminaadaada oo dhan ha isku geyn saaxiibada, baro sida loo adeegsado cadowgaada. Never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Saaxiibada marmarka qaar ka feejigno, waayo way kaa masayri karaan, si sahlana way ku hungoobin karaan. Dhanka kale, cadowgaada waxba kuma qarinayaan, waad og tahay inay ku necab yihiin, baro sida loogu xamaasho. Cadowgaadii hore ayaa noqdo saaxiibka ugu wanaagsan. Heerka saddexaad, idna hala wadaagin waxaad maagan tahay. Conceal your intentions. Haddii aad sii shaaciso waxaad ku dagaal geli lahayd, waxaad bixisay fursad lagaga sii gaashaanto kadib cidda aad ishaysaan. Mowqifkaaga ha caddaynin, ha noqon mid la heli karo. Heerka afaraad, haddii aysan laga maarmaan ahayn, aamusno. 8 ways say less than necessary. Haddii aad daldalanto, akhirkii waxaad tahay mid ku hadlo wax aan xigmad ku fadhiyin oo ku qiimo tira. Ogsoono, libaaxa aamusan ayaa ka halisan midka qayliya. Heerka shanaad, sharaftaada dhowr. So much depends on your reputation. Guard it with your life. Sharaftu waa seeska awoodda. Intaysan sharaftaadu dhiman, cid kasta waad maamuli karta, balse markaad sibxato, ogsoonow inaad nuglaan doontaa. Waa sababta ay siyaasiyiintu uga cabsoodaan saxaafadda, mar kastana ay u raadiyaan inay bulshada sumcad ku dhex lahaadaan. Heerka lixaad, qiimo kasta u hor inaad soo jiidato dareenka mujtamaca. Court attention at all cost. Jid kasta u mar inay isha dadku ku qabato oo aan aanimo iyo shacbiyad lagaga horayn. Baabuur iyo saacado, lebis iyo habdhaqan qaaliya lahow, waxaad u ekaan doonta mid awood leh oo la xushmeeyo. Heerka toddobaad, shaafada ha lagu qabto, libintana adigu yeelo. Get others to do the work for you, but always take the credit. Ha noqon mid isku dayo inuu qabto shaqo kasta. Ku shaqee oo ku aano maal dhididka dheecaanka kuwa leh aqoontii waayo aragnimadii ku habboonayd hawshaas. Hubinna inaad ugu dambayn libinta adigu sheegato. Heerka sideedaad, dadku ha noqdaan kuwo kugu soo carara kol aad dabin ku soo xeergeliso.
Make other people come to you. Use bait if necessary. Waxbaha u qaban naftaada ama juhdi ha ku bixin taasoo ay cid kale ku qaban karto. Haddii hawsha uu qofka ku qaban karo waa inaad qofka u daysaa. Keligaa hadad isdhahdo meel bagaadhaysa waxba ma qabanisid. Hubi xodxodo ama adeegso tab kasta oo aad ku soo debi karto, kadib deeliga ka lumi oo ka weerar meel uu ka filayn. Heerka 9. Guushaada ku xaaqiji ficil maya muran. Win through your actions, never through argument. Haddii aad doonayso inaad muujiso awooddaada noqo mid guulihiisa ku muujiyo ficil iyo tallaabooyin muuqda, nacas ayaa ku hodma guul lagu gaadho muran iyo hadal. Heerka 10. Ka dheero kuwa murugaysan ee nasiibka xun, waa xanuun la iskabadsiiyo. Infection. Avoid the unhappy and unlucky. Masiibada murugadu wehel ayay jeceshahay. Ka dheero kuwa la saaxiibka. Heerka 11. Baro sida dadka looga dhigo kuwa kugu tiirsan. Learn to keep people dependent on you. Heerkan waa mid burburiya tartanka intuusan noqon mid halis ah. Haddii aad ogolaato inay dadka ka madax bannaanadaan, aakhirkii waa kuwa kaa kaaftooma. Haddii aad doonayso awood dhammaystiran, waa qasab inay dadku adiga kugu tiirsanadaan. Xorriyadaada iyo awooddaadu waxay ku xirnaan doontaa cadadka dadka adiga kugu xiran. Heerka 12. Adeegso daacadnimo iyo deefsinimo xadidan si aad hubka uga dhigto dhibanahaaga. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Dadku badana waa kuwo iska walwalsan, ku aamini maayaan haddii aad mar kasta u muuqato qof danayste ah oo xakamaha jecel. Sidaas darteed muuji wax yaro daacadnimo ah si aad hubka uga dhigto dhibanahaaga. Heerka 13. Markaad axsaan dalbanayso, dadka u soo bandhig wax ay dani ugu jirto, maha naxariis iyo mahadnaq. When asking for help, appeal to people's interest. Never their mercy or gratitude. Haddii aad rabto in qof uu ku caawiyo, u soo bandhigso danaysi oo ku kalifta. Dadku way iluushiyo dhow yihiin, dana kama laha haddii aad horay u caawisay ama aad u ahayd mid u naxariis badan. Balse haddii aad u soo bandhigto dalab ah inay lacag iyo faa'iido ka samayn doonaan haddii ay howl ku qabtaan, markaas si xamaasad ku dheehan ayay ku caawin doonaan. Qofna ha ka sugin mahadnaq iyo naxariis. Heerka 14. Ugu muuqo sidii saaxiib balse ula dhaqan sidii naaquude. Pose as a friend, work as a spy. Dadka la saaxiib xasilooni ha kugu agdareemaan, u sahal inay si kal iyo laaba kula sheekaystaan, kadibna la wadaag weydiimo dadban oo siraha ugarsoon ka soo saara. Sidaasna ku ogow meelaha ay ka nugul yihiin iyo cabsiyaha ay la nool yihiin. Si aad dadka awood ugu maquuniso, waxaad u baahnaan doontaa inaad faro ka hayso. Heerka 15. Gebi ahaanba ka takhallus cadowgaada. Crush your enemy totally. Haddii aad cadowgaada dhaawac tiri weydo, wuu kugu soo kabsan doonaa, wuuna kaa aasan doonaa. Heerka 16. Maqnaanshahaga u adeegso si aad hesho xushmad iyo sharaf. Use absence to increase respect and honor. Qiimo isugu yeel maqnaantaada. Haddii aad noqoto qof mar kasta la heli karo, markaas dadka damaanad ayaad u siisay inaan lagu tabin. Heerka 17. Ku xanib xaalad argagax leh, abuur jawi aan la saadaalin karin. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. Baniaadanku waa makhluuq jecel caadada dhaqanka joogtada iyo in ficilada qofku noqdaan kuwa la aqoonsan karo. Haddii aad tahay mid la saadaalin karo, markaas waxaad bixisay fursad xasilooni iyo deganaansho. Miiska dabagedi si ula kaca u noqo mid aan la saadaalin karin. Dhaqannadaada aan joogtada ahayn waxay ka dhigi doonta kuwa lumiya deeliga. Waqti ayay gelin doonaan si ay u fahmaan talabada xigta ee aad qaadayso. Xeeladan haddii aad ku fuliso, waxay ka dhigi doonta kuwa cabsi iyo argagax la soo deristo. Heerka 18. Ha dhisanin qalcado si aad isku difaacdo. Isku doomintu waa khatar. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Dunidu waa mid khataro badan. Qof kasta khataro u gaara ayuu la tacaalaya. Inkastoo in dhufays la galo ay u muuqato badbaado, haddana wax ka halis badan ma jirto inaad isku doomiso. Waxaad noqotaa mid waaya xogo muhiim ah, mid si sahlan loo bartilmaamaysan karo. Dadkaaga ku dhex jir. Mar kastood aad ugu sii dhexmilanto dadka waxay ka dhigan tahay inay sii yaaranayso fursada lagaga guulaysan karo. Heerka 19. Ogow qofka aad la tacaalayso, ha ku xadgudbin qof kale. Know who you're dealing with. Do not offend the wrong person. Bini'aadamku waa kala abuuris, macquulna maaha in dadku xeeladahaga isku si uga falceliyaan.
qof aysan waxba idinka dhaxayn ayaad ku xadgudubtay, sidaasna waxaad ku samaysatay cadow hor leh oo inta noloshiisa ka dhiman wakhtigiisa geliya siduu kaga aasan lahaa. Sidoo kale ha ku qaldamin qofka awood badan. Xeerka 20aad. Qofna ha iswada siin. Do not commit to anyone. Qofka nacaska ayaa ku degdega inuu dhan la safto ama edgaar isku dhiibo. Marna ha iswada siin qadiyad gooniya ama qof gaara oo aan ka ahayn naftaada u muuqo mid aan dhan u haglin oo dhexdhexaad ah, markaas waxaad noqon doonta mid awood badan. Xeerka 21. Matal qof la fiyaami karo si aad u hesho fiyaanoolaha u muuqo mid ka doqonsan bartilmaameedkada. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. Qofna ma jeclo inuu ka doqonsanaado qofka ay ishayaan, sirtu waa in dhibanahaagu ismooda xariif, weliba mid adiga ka xariifsan. Markuu intaas aamino, kama shakin doono inaad wadato ujeedooyin qarsoon. Xeerka 22. Adeegso xeeladda isdhiibidda, daciifnimada awood u beddel. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. Markii ay kaa jajaban tahay dagaalka ha sii wadin bale isdhiib. Isdhiibiddu waxay ku siin doontaa wakhti aad ku soo kabato. Ka takhallus qabkaaga oo isdhiib markan si aad u khalkhaliso cidda aad ishaysaan. Xeerka 23. Xoogga saar awooddahaaga. Concentrate your forces. Awooddada iyo tamartaada oo dhan iskugu gee hawsha ama qofka aad sida gaarka ah u rabto inaad wax ka qabato yuusan dagaalku kaa baahin. Xeerka 24. Noqo qofka daaha gadaashiisa wax ka maamula. Play the perfect courtier. Noqo la taliya sare ee qof awood badan kadibna daaha gadaashiisa wax ka maamul oo si xariiftinimo leh u adeegso awooddaas. Hana ismuujin oo cidna dakano ha ka gelin. Xeerka 25. Dib u huro. Recreate yourself. Ha balin doorka ay bulshadu ku siiso dib u huro oo noqo qofka aad rabto inaad noqoto marka aad doonto isbeddel. Dunidu waa masrax, adigu xulo doorka aad rabto inaad matasho. Xeerka 26. Gacmuhu nadiifa ku ahaadaan. Keep your hands clean. Maxaa gacmaha kaa wasafaynaya adigoo heli kara mid shaqada wasafaysan oo dhan aad ku qabsato, ugu dambayna dembiga oo idil aad u xambaariso. Xeerka 27. Ka faa'iidayso rabitaabka dadka ee ah in wax uun la iska rumeeyo oo noqo mid lagu daba faylo. Play on people's need to believe to create a cult-like following. Dadku waxay leeyihiin rabitaan xad dhaafa oo ah inay wax uun iska rumaystaan, noqo qofkii lagu daba fayli lahaa oo rabitaankaas daboola islamarkaana oriya qadiyad la wada ilaashado. Xeerka 28. Hawl kasta ku qabo dhiiranaan. Enter action with boldness. Ha noqon mid laba ah oo bilaa kalsooni ah. Haddii aad tahay mid kajilaad badan oo cabsada, waxaad ku dambayn mid la burburiyo. Xaalad kasta ku wajah dhiiranaan iyo geesinimo. Xeerka 29. Qorshe dhammaystiran yeelo. Plan all the way to the end. Qorshahaagu ha noqdo mid ilaa gabgabada shaqeeya, ku xisaabtan caqabadaha soo bixi kara, fursadaha isbeddelada. Ha ogaalinin inay guusha kugu seegto qorshe xume. Xeerka 30. Guulahaaga ha u muuqdaan kuwa aad dadaal la'aan ku gaadhay. Make your accomplishments seem effortless. Waxqabadkaadu ha muuqdo waxaad si sahlan ku qabatay oo aad karti u leedahay. Xeeladaha aad adeegsato waa inay sir ku ahaadaan, u muuqo madaale iyo ismadhibe. Ka feejignow inaad dadka la wadaagto rafaadka iyo silaha aad u martay guulahaaga, waxay abuuri doonaan su'aal iyo tuhun laga keeno kartidaada iyo awooddaada. Xeerka 31. Xakamaha u qabo doorashada la haysto, deesha adigu maamul. Control the options. Get others to play with the cards you deal. Fiyaano ka weyn ma jirto markay moodayaan inay doorasho haystaan, balse xaqiiqadu ay tahay inay kala dooranayaan doorasho aad adigu ka soo shaqaysay, laba daran mid ha doorto dhibanahaagu. Xeerka 32. Ka faa'iidayso hawada fantasiyada dadka. Play to people's fantasies. U abuur dadka hawo fantasiyo soo jiidata khiyaalkooda, deedna sidaas ku xakamee. Xeerka 33. Ogow meesha uu qof walba ka jilcan yahay. Discover each man's thumbscrew. Waxaa laga yaabaa inuu qofku dabci u leeyahay baqdin, inay baahi gaara hayso, ama inuusan xakamayn karin shucuurtiisa ama sir gaara uu ku nafiso. Ogow halkaas uu ka jilcan yahay, dabadeedna qaab ku anfacaya uga faa'iidayso. Xeerka 34. Yeelo habdhaqan boqortooyo, isku matal boqor si lagula dhaqmo inaad tahay boqor. Be royal in your own fashion. Act like aching to be treated like one.
ugu dambayn sida aad iska dhigto ayaa lagula dhaqmi qof caadiya ayaad noqotay markaas cidna kaa haybaysan mayso. Xeerka 35 Nago macalinka ku xeel dheer kaadsiinyaha. Master the art of timing. Ha u muuqan qof degdegsan mar kasta, waxay lama ano noqon in xakamuhu kaa lulsan yahay. Deganaan muuji. Xeerka 36 Iska indhotir waxaadan heli karin inaad xabtirtaa waa argosiga ugu fiican. Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. Cadowgaadu wuxuu hoogaystaa marka aad qiimo u yeesho. Xeerka 37 U samee muuqaal cajiiba oo ay qasab ugu riyaaqaan. Create compelling spectacles. Hiikii oo ka indhasir aad waxaad magan tahay. Xeerka 38 U fikir sida aad jeceshahay balse u dhaqan sida dadka kale. Think as you like but behave like others. Haddii aad u dhaqanto qaab dadka ka duwan, waxaa iman in laga masayro ama lagu naco sidaasna aad cadow ku samaysato. Dadkaaga ku dhex jir oo ha iska soocin. Xeerka 39 Biyaha laaf kici si aad kalluunka dibadda ugu soo saarto. Stir up waters to catch fish. Maxaa ka wanaagsan markaad taqaan waxa cadowgaada ka xanaajiye kadibna aad ka faa'iidaysato iimahooda. Noqo mid mar kasta xasiloon oo degan, dhanka kalena cadowgiisa ka lumiya dheeliga. Xeerka 40 Iska diid waxa bilaash lagu siiyo. Despise the free lunch. Ma jiran wax bilaash lagu siiyo badana khiyaano ayaa laga leeyahay ka feejigno wax kastoo bilaash lagu soo bandhigo. Xeerka 41 Ka fogow inaad ku ag muuq beesho qof aan. Avoid stepping into a great man's shoes. Haddii aad qof magac leh ku hoos jirto waxaad noqon mid ku hoos lumahadkiisa. Samayso jid adiga ku gaara oo ka tag dhaxal lagu xasuusto. Xeerka 42 Arijirka weerar, arigu isaga kala carariye. Strike the sheep herd and the sheep will scatter. Hal qof ayuu badanaa ku soo dhammaada raadka caqabadnimada, ogow kadibna iska qabo, hala haajoonin ee ekaab ama iska soo, haddii kale kuwa kale ayuu duufsan. Xeerka 43 Ka qabso maankooda iyo qalbigooda. Work on the hearts and minds of others. Haddii aad dadka qasabto aakhirkii waxay abuurta falcelin inay kula dagaalaan. Noqo mid kasbada oo shukaansada. Qofka aad tashkiiliso wuxuu noqdaa mid daacad ku oo jihadaada u socda. Qaabka ugu sahlan ee qof loo tashkiiliyaana waa inaad ka duushaa sida qalbigiisa iyo maankiisu u samaysan yahay. Xeerka 44 Hubka kaga dhig oo kaga xanaaji inaad anjisho. Disarm and infuriate with the mirror effect. Markaad anjisho cadowgaada ma ogaan doonaan fibradaha rasmiga ee ku qarsoon. Xeerka 45 Ku wacdi in isbeddel loo baahan yahay laakiin hal mar ha samaynin isbeddel ballaaran. Preach the need for change, but never reform too much at once. Qof kasta way ka dhaadhacsan tahay in isbeddel la sameeyo, laakiin xaqiiqatan dadku waa kuwa u abuuran inay ka helaan waxa joogtada caadada way sanifaan wax cusub iyo isbeddelka, waxayna ku wajahaan kacdoon. Haddii aad tahay hogaamiye cusub ama mid raba inuu ilaashado ama dhisto awood iyo maamuus, noqo mid hormeeya caadooyinkii iyo dhaqanadii horay u sii jiray. Xeerka 46 Ha u muuqan mid dhammaystiran. Never appear too perfect. Inaad u muuqataa mid kaamil waa khatar, weliba waxay u sii daran tahay marka lagu arko inaadan lahayn wax jileec ama nugeyla. Masayrku wuxuu ku abuuraa cadow qarsoon. Si aad uga xijaabato masayrka uguna muuqato qof caadiya oo la wajihi karo, waxaa habboon inaad marmarka qaar muujiso nugeyliyo inaad tahay qof jilcan oon dhammaystirnayn. Xeerka 47 Ha dhaafin halkii aad calaamadsatay. Do not go past the mark you aimed for. Ha dhaafin halkii aad hiigsanaysay, baro marka la rabo inaad joogsato. Kibirka iyo kalsoonida xad-dhaafka waxay ku dhaafiyaan halkii aad hiigsanaysay. Mar kasta oo aad halkaas dhaaftana waxaad sii abuurataa cadow hor leh adigoo damacsanaa inaad kuwa ka takhalusto. Guushu yaysan ku madax marin, qorshe iyo istaraatiijiyada dejiso marka aad gaadhana joogso. Xeerka 48 Noqo mid bilaaqaba. Assume formlessness. Noqo bilaaqaab sida biyaha. Inaad yeelata qorshe muuqda waxay ka dhigan tahay inaad isku fuftay in cadowgaadu ku soo weeraro. Iska dhig mid furan oo aan lahayn meel lagu soo hagaago.